kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta maanta oo markasta aan kugu soo gudbino war wixii ugu waaweynaa ee dalka iyo dibaddiisa ka jira. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar si aan kugu soo gudbino war waxa dalka iyo dibaddaba ka jira. qodobada aad ku maqli doontaan warkeena maantana waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal oo ka hor yimid amar horay uga soo baxay ku-xigeenka kaasi oo walaac laga yaabo in uu ka dhasho. dowladda Qatar oo soo faragelisay dagaalka ka dhex aloosan siyaasiyiinta ugu sareysa dalka soona saartay war xasaasi ah. dhacdo la yaab leh oo ka dhacday gobolka Mudug kaasi oo haweeney ay ku dishay ninkeeda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. qarax maantay ka dhacay isgoyska Soobe kaasi oo lala eegtay dad u dhashay waddanka Turkiga kuwaasi oo howlo shaqo u joogay Soomaaliya. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena. maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa qaatay go'aan ku saabsan inuu shaqada u fasaxo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka. guddigan ayaa waxaa horay u kala diray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo soo saaray waraaq. gudoomiye mursal ayaa shaqada u fasaxay guddigan oo horay loo sheegay in la kala diray taasi oo ay ka dhalatay muran badan. guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ayaa dood badan ka dhex dhaliyay fadhiga baarlamaanka. sidoo kale waxa ay muddo walaac geliyeen xukuumadda kadib markii ay ku eedeeyeen in ay musuqmaasuq ku kaceen. lama oga haddii gudoomiye mursal uu arrintan la og yahay ku-xigeenkiisa oo horay warqad u soo saaray guddigan looga joojinayo shaqadii ay u qaabilsanayeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. dhacdo la yaab leh ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Hobyo ee gobolka Mudug kaasi oo haweeney ay ku dishay ninkii qabay. wararka warbaahinta xogta maanta ee magaalada ay maanta ka helayso magaalada Hobyo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay haweeney ku dishay ninkeeda dib markii uu soo kala dhaxgalay labadooda khilaaf. falka dilka oo dhacay duhurnimadii maanta ayaa waxaa la sheegay in haweeneydu ay sayigeeda khilaaf la xiriira arrimaha qoyska uu soo kala dhaxgalay hase yeeshee ay ku dishay qori uu lahaa. qof ka mid ah dadka ku nool magaalada Hobyo ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Cali Dheere kana tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 21aad ee ka howlgasha deegaanada Galmudug. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in haweeneyda dilka geysatay ay goobta ka baxsatay hase yeeshee ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Hobyo ayaa ku raad joogay waxaana la filayaa in ciidamadaasi ay soo qaban doonaan haweeneydaasi dilka geysatay. lama oga ilaa hadda waxa dhabta ah ee uu ka dhashay khilaafka keenay in la dilo ninkan. tahay daawadayaal wali waxaad naga dhageysanaysaan xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay bartan YouTube-ka subscribe saar madda gambaleelkana sii furo markasta ayuu ku soo gaari doonaa war wixii aan soo dhignay. markana dalka Qatar. dowladda Qatar ayaa soo faragelisay dagaalka ka dhex aloosan siyaasiyiinta ugu sareysa dalka soona saartay baaq xasaasi ah. dowladda Qatar ayaa ugu baaqday dhinacyada Soomaaliya ee isku khilaafsan siyaasadda Soomaaliya in meesha ay ka saaraan kana wada shaqeeyaan sidii horay loogu sii wadi lahaa geedi socodka siyaasadeed loona xoojin lahaa dadaalka dib u heshiisiinta qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kor u qaadista xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ah. la taliyaha waaxda xuquuqda insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda Qatar Dr. Turki Al-Maxamuud ayaa sheegay in caqabado badan ay soo food saartay Soomaaliya isla markaasna tan ugu muhiimsan ay tahay la dagaalanka argagixisada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadkooda ay kula jiraan. waxa uu xusay in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay guulo badan oo muhiim ah ay ka gaarto dhinacyada amniga, siyaasadda, samafalka iyo heerka xuquuqda aadanaha. waxa uu ku baaqay in baahi loo qabo in la ilaaliyo guulahaasi lana shaqeeyo si loo dhammaystiro marxaladaha soo socda, isagoo tilmaamay in doorashada Soomaaliya ee golaha xuquuqul insaanka loo arki karo fursad ay Soomaaliya ku biiri karto ugana faa'iideysan karto dadaalada caalamiga ah ee lagu horumarinayo laguna difaacayo xuquuqda aadanaha. Dr. Turki ayaa tilmaamay in dowladda Qatar ay martigelin doonto shirka kooxda xiriirka ee ururka iskaashiga Islaamka ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya kaasi
oo ah mid heer wasiir oo ay ka qaybgalayaan 20 iyo oo ay ka qaybgalayaan wasiiro badan kaasi oo dhacaya 27 bisha Oktoobar kana dhici doona magaalada Doha ee dalka Qatar. sidoo kale waxa uu xusay in dowladda Qatar ay ka go'an tahay dhowrista madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dowladda ee Soomaaliya taasi oo dib u xaqiijinaysa go'aankeeda ah inay garab istaagto dadka Soomaaliyeed ayna sii wado taageerada ay u hayso dowladda Soomaaliya si ay u caawiso dhisidda dowladnimo xasiloon. Qatar ayaa ah taageeraha ugu weyn ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo malaayiin dollar ku bixisa taageerada dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. sidoo kale waxaa jira mashaariic ku kacaya boqolaal bilyan oo dollar oo ay saxiixeen dowladda Qatar. dowladda Soomaaliya ayaa wajahaysa caqabado siyaasiyiin kaga imaanaya kuwaasi oo khilaafsan sida dowladda Soomaaliya ay u maamusho waxayna inta badan sheegaan inay ku socoto dowladdu hanaankii burburka oo ah in ay baalmartay dastuurka u qoran dowladda Soomaaliya. qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay duhurnimadii iska soo beekaasi oo lala eegtay dad u dhashay waddanka Turkiga. dadkan ayaa ka shaqeynaya magaalada Muqdisho. qaraxan ka dhacay iska 14ka Oktoobar kaasi oo mar dhow magacaasi loo bixiyay kadib qaraxii Soobe ayaa waxa uu ahaa mid laga maqlay meelo badan oo ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. qarax ayaa waxa uu ahaa mid gaariga lagu xiray oo la qarxiyay xilli uu marayay iskaasi. warar kale ayaa waxay intaasi ku darayaan in qaraxan uu ahaa miino lagu dhajiyay gaariga ay wateen dadkan Turkiga u dhashay kuwaasi oo ka shaqeynayay dhismaha jidka magaalada Muqdisho ilaa iyo Afgooye isku xira. 2 qof ayaa la sheegay inay qaraxaasi ku dhaawacmeen oo u dhashay dalka Turkiga waxaana gaariga lahaa injineer dhisayay wadadaasi Afgooye Muqdisho isku xirta. waa markii labaad oo la qarxiyay injineero dalka Turkiga u dhashay kuwaasi oo howlo shaqo u jooga Soomaaliya. waa tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dunida dacaladeeda ka jiray oo aad ka daawanayseen kanaalka xogta maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan subscribe saar markasta si degdeg ah ayuu ku soo gaari doonaa warka ka jira dalkeena. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa xogta maanta oo alaabaad ka daawataan war wixii dunida dacaladeeda ka jira. fadlan haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay subscribe saar.